qoyskani waa qoys dhibaataysan oo ku nool magaalada Hargeysa. waa qoyskii ka koobnaa 14 qof ee dhammaantood qabay xanuunka dhimirka. waa dad danyara, noloshoodu aad ayay u adag tahay. haddaba qaar ka mid a culimmada waaweyn iyo bahda dhaqanka ayaa bulshada islaamka meel walbo ay joogaan waxay ilaahay dartii ugu baaqayaan inay ka qayb qaataan maadaama lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan. bishan waa bishii naxariista, waa bishii sadaqada. ilaahay dartii walaal uga qayb qaata. culimmaduna waxay leeyihiin walaalaha muslimiinta, walaalaha muxsiniinta meel kastoo ay joogaan, in qoyska dhibaataysan ee walaaladeena ee xanuunku asiibay ee muuqaalkooda arkaysaan in wixii ay ku soo tari karaan ay ku soo taraan. runtii adduunyadani waa daarul imtixaan. dadka waa la isku imtixaamayaa. ka caafimaadka qaba waxaa lagu imtixaamayaa ka xanuunsanaya, ka faqiirka waxaa lagu imtixaamayaa ka qaniga ah ee wax haysta. waxa weeye ilaahayna cidna waxba uma waayin. waa imtixaan ilaahay dadkiisa isku imtixaamayo si ilaahay uu inoogu ilaaliyo ubadkeenna, si ilaahay inoogu ilaaliyo caafimaadkeenna, si ilaahay inoogu ilaaliyo adduun iyo aakhiraba waxaynu haysanno. waxaa loo baahan yahay inaynu walaalaheenna dhibaataysan aynu caawinno. walaalaha muslimiinta waxaan u sheegaynaa inay ka qayb qaataan sidii loo caawin lahaa reerkan. 14 qof oo faamiliga kamidii way xanuunsanayaan, maskaxda ayay ka xanuunsanayaan. 2 waalid baa ku jira, walaalihii baa ku jira, 4 adeer baa ku jira. marka reerkani aad iyo aad bay u dhibaataysan yihiin. dadka muslimiintana waxa ay isku leeyihiin walaalnimada islaamka oo keensanaysa in kii dhibaataysan dhibtaasi wax lagala qabto. sadaqadiina ayaad ku darsan kartaan, zakadiina ayaad ku darsan kartaan. inaan u sameeyno barnaamij joogto ah oo maalgelin ah oo ay kaga maarmaan reerkii in kolba masaajid in lacag looga ururiyo. aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa walaalaha muslimiinta ee maqlaya, sida culimada kaleba ay sheegeen, in wixii lala qaban karo reerkan lala qabto, musaacado laxadlana la siiyo. hadda baray ku nool yihiin guri ah, laakiin daryeel bay u baahan yihiin, daawo ay u baahan yihiin. marka dadkaasi waxaan idinku codsanaynaa inaad ilaahay ugu dhawaataan maanta bisha Ramadaan ee barakaysan ka faa'iideysataan. inteenan hadlaysa kuwa kalena caafimaad darro lagu imtixaamay. rabbi wuxuu yidhi wa axsinuu kama axsana allahu ilaykum. u samafala samafalidda oo alla idiin samafalay aawadeed. marka qofka muslimkii intuu caawinayo walaalkiisa muslimka ah, isagana allah baa garabkiisa ah. maxamuud ibraahim waa wiilka keliya reerka ka mas-uulka islamarkaa noloshooda la soo daaladhacaya muddo dheer. maxamuud waa wiilka keliya reerka ka caafimaad qaba, waxaanuu bulshada islaamka ugu baaqayaa in ilaahay dartii loo soo caawiyo ehelkooda maadaama lagu jiro bishii barakaysneed ee Ramadaan. walaal aynu gargaarno dadka dhibaataysan, markaynu naxariisano dadka jilicsan ayaa ilaahay noo naxariisanaya. walaal maxamuud reerkooda aynu gargaarno. walaal wixii aad heli karaysaan, bil Ramadaan baa lagu jiraayo ugu soo hagaajiya telefoonada iyo ciwaanada.